halka aad inaga daawanaysaan waa saxafi films dhammaan asxaabta qiimiga badan meel kastoo aad dunida ka joogtaan waa salaamantihiin waa mar kale iyo barnaamijyadeeni xiisaha badnaa ee aynu kaga hadalno aktarada dalkaasi India u dhashay iyo sheekooyinka iyo qisooyinka xiisaha leh aynu kaga hadalno haddaba barnaamijkan waxaanu kaga hadli doonaa labada jilaa waa labada actrice ee Madhuri Dixit iyo aktarada caanka ee Kajal marka la fiiriyo aktaradan waa labadan actrice Madhuri Dixit iyo Kajal waxa ay kamid yihiin actrishooyinka ugu magaca dheer actrishooyinka soo maray shirkadaha filimada sameeya ee dalkaasi India haddaba marka ay noqoto dhanka shacbiyada iyo dhanka jilinka qolo kastaba waa ay ku kala duwan yihiin dhanka fikirka dadka qiimeeya actrishooyinkaasi marka ay noqoto Madhuri Dixit iyo Kajal haddii la fiiriyo dhanka biladaha waxaa Madhuri Dixit ay kamid tahay actrishooyinka ugu safashada badan u tartamida biladaha la guddoonsiiyo actrishada ugu wanaagsaneed ee sanadkaasi haddaba haddaynu Kajalna soo qaadano Kajal lafteedu ma leedato oo waxay kamid tahay actrishooyinka ugu biladaha badan ee ka howlgala shirkadda Bollywood ee dalkaasi India haddaba actrishooyinkan haddaynu soo qaadano waxyaabaha ay ku kala sareeyaan iyo qiimeynta lagu sameeyay haddaba Madhuri Dixit waxaa lagu tilmaamaa in ay tahay markii la soo qaatay hidaha dhaqanka iyo qoobka ciyaarka lagu soo bandhigo ciyaaraha dalkaasi India oo caan ku yahay filimadana lagu daro waa actrishada koowaad ee ku ciyaari karta 7 ciyaarood oo kala gedisan oo dalkaasi India ciyaaraha hidaha dhaqanka uu leeyahay kamid ah waxa ay kaloo kamid tahay Madhuri Dixit actrishooyinka marka ay xirtaan dharka dalkaasi uu soo saaro oo dhar iyaga lagu yaqaan oo ay caan ku yihiin dalkoodana lagu sameeyo markii ay xirato gabar aad ugu qurux badan sidoo kale waxa ay kamid tahay markii ay filimaanta jilayso waa actrisho matali karta xishood iyo shacni wanaagsanna soo bandhigi karta haddaba dhanka Kajal marka aynu fiirino hidaha dhaqanka lafteedu Kajal kuma ay liidato oo aad ayay ugu qurxoon tahay balse marka ay noqoto dhanka ciyaarta waxaad moodaa in Kajal laga sito oo Madhuri Dixit qiimeyn badan ay haysato haddaba dhanka jilinka marka ay noqoto Kajal xageebay kaga hormartay actrishada caanka ee Madhuri Dixit waxaa lagaga hormaray marka ay noqoto faniska iyo qof sheeka badan in la jilo oo farxaana Madhuri Dixit taas ma keeni karto oo waa qof xishood badan waana meesha ay ku qaadatay asluubta iyo eedaabta ay kaga hormartay dhanka Kajal haddaba Kajal waxa ay jili kartaa qof ciyaar suuqada qof fani ah qof xanaaqsan qof marwa intaba waa ay matali kartaa taasina waa tan keentay in shacbiyad badan iyo taageero badan in ay Kajal hesho sababtoo ah dadku waa dad qayb fani ah qayb xanaaq badan qayb dhexdhexaada qayb hidde intaba waxa ay ka haysataa Kajal taageero halka Madhuri Dixitna ay haysato dad sumcad ku leh dalkaasi India oo ilaaliya dhaqankooda iyo hidahooda kuna ixtiraama qaabka ay Madhuri Dixit u soo bandhigto filimada marka ay daadihinayso haddaba dhanka Kajal iyo Madhuri Dixit marka aynu qiimeyno Soomaali ahaan Soomaalidu badanaa waxa ay aad u jeceshahay Kajal oo ay yiraahdaan waa actrishada kaliya ee Shahrukhan meel naga saari karta marka ay noqoto jilin Shahrukhan actrishooyin badan ayuu filimada la daadiyaa balse dhibcaha ayuu ka gurtaa oo banaanka ayuu u tuuraa Kajal waa gabadha kaliya ee Shahrukhan istaajin karta marka ay noqoto jilin faraka ciyaar iyo qoslid iyo ka xanaajin intaba la keeni karta haddaba dhanka Soomaaliya waa Kajal ayaynu dhihi karnaaye gudaha dalkaasi Indiana waxaa la yiraahdaa Madhuri Dixit iyo Kajal ma kala dhacaan inkastoo marka ay noqoto daawashada heesihii ay sameeyeen labadan actrisho Madhuri Dixit heesaheeduna ay aad qiimo u leeyihiin Kajal lafteedu aysan lahayn heesa liita oo ay leedahay heesa tooba oo ay caan ku tahay balse taageeraha marka ay noqoto haddii la fiiriyo qiimeynta waxaa la yiraahdaa Kajal ayaa kaga dambeysay dhanka jilinka aktarada Madhuri Dixit waana inta keentay in percentage aan badnayn ay kaga taageero badato Madhuri Dixit gudaha dalkaasi dunida daafaheeda labadaba waa la taageeraa balse marka ay noqoto dalalka dariska la ah Kajal ayaa number 1 ka ah oo hogaaminaysa actrishooyinka loogu jecel yahay dalka India actrishooyinka u dhashay daawadayaal barnaamijka aynu kaga hadlaynay isbarbardhigii Madhuri Dixit iyo Kajal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka waxaa idin daadihinaya anigoo Xaqil Cabdifaar halka aad ka daawanayseen waa Saxafi Films haddaba si aad uga mid noqotid bahda ku xiran Saxafi Films fadlan subscribe saar Saxafi Films kadibna kambalelka taabo si barnaamijka markuu hawada soo galaba notificationkiisa ama warqadda ogeysiinta ay kuugu soo dhacdo fikirkaagana waxaad nagula wadaagi kartaa qaybta commentiska ee Saxafi Films inagoo isku duuban oo bahda Saxafina intaynu barnaamijkan lamid ku kulbana daawadayaal waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo